السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوداش قيمها قدرين تمدن توس كان صدوا هالكني وهروناق نيوز أو مرول بان نجد داوتان شاشة دان بوج إنترنت كلنا هاي وياهاي هروناق news.com سيدو كلنا وحاسي توس نقول جستان مقالة تورنتو واحد كده بموجود دولار كده وياهاي 1.3 FM تورنتو واحد كده بقى daawadayaasha qiimaha qaayaha badan iyo dhageystayaasheedaba waxaanu maanta nasiib u helnay inaanu la kulanno Daahir Axmed Faarax oo isagu ah hogaamiyaha ugu adag mucaaradka dalka Djibouti ee MRD una taariikhda weyn leh waxaan jeclahay marka hore Daahir inaan kugu soo dhaweeyo website-ka Harwanaag News iyo idaacadda 1.0.1.3 magaalada Toronto laga dhageysto ku soo dhawo waad mahadsantiin walaal Harwanaag News waan dhawahay wahagaag daawadayaasheeda sida tooskan ugu dhigso waxaan gudagali doonaa waraysi aan haatan aan la yeelan doono Daahir Axmed Faarax Daahir socdaal dheer ayaa aad ku timid dalka Canada adiga oo wadamo badan soo maray gaar ahaan dalka Mareykanka soo maray socdaalkaagaas muxuu daarnaa warun socdaal baan ku imid qaaradani Ameerikada waqooyi waxaan ka bilaabay dalka Mareykanka siba magaalada Washington waxaan u dhaafay kadib gobolka Maine oo ka imid haatan imankan waxaan ku suganahay saad ka dhawaajisayba Canada siba caasimadda Canada Ottawa socdaalkaygaasi wuxuu la xiriiray halgankan ugu jirno isbedelka dimuqraadiyadeed dalkayga Djibouti dalka oo dimuqraadi ka jirin tan iyo markaan calanka qaadanay 1977 dalka Djibouti oo xusbi qori ka taliyo taaba sababtay dictatoriyada amba kelitarinta ayaa sababtay in dad badan oo reer Djibouti ay dalkii ka soo qaxaan Europe amba North America kulankaygu kolkaa waxa uu yahay inaan la kulmo dadkayga xubnaha xusbiga iyo taageerayaasha xusbiga ee ku nool North America siba Mareykanka iyo Canada si aan halganka kaalin door ay uga ciyaaraan dabcan awalba way ka ciyaari jireen laakiin si halkii uga sii wadaan iskugu warrano iskugu xoog warrano arrimahan aanu xoojino waxa kaloo taa raaca madaxda dalalka aan soo maray sida Mareykanka iyo halkan Canada aan iyagana la kulmo uga warramo xaaladda Djibouti isna weydiino sida ay ugu garab gali karaan ummadda reer Djibouti halkan ay ugu jirto isbedelka dalkayaga isbedelka dimuqraadiyadeed wahagaag Daahir adigu waxaad muddo dheer ahayd mucaarid dalka Djibouti ka jira gaar ahaan hoggaan u ah xisbiga mucaaridka MRD waxaad marar badan aad wada hadal la gasheen dawladda Djibouti ee uu garwadeenka yahay Ismaaciil Cumar Geelle wada hadalladaasna wax midho iskama iman marka miyana kula ekeyn in mucaaridnimadiinu aanay wax midho ka dhalinahayn dalka Djibouti mid baa runoo taliska aan isaynay waa talis macaangaga weeyaan heshiis baan la galay 2013 bishii 12 anagoo ah dalada mucaaradka heshiiska ayaa waxa uu ku ogolaaday talisku inuu furfurnaan dimuqraadiyadeed inuu sameeyo siiba inuu asaaso guddi doorasho oo qaran oo madax bannaan oo labadgeesooda ka kooban mucaarad iyo muxaafad shakhsi lagu kalsoon yahay inuu hogaaminayo guddiga oo la xiriira charterka amba axdiga Afrikada ee dimuqraadiyadda maamul wanaaga iyo doorashooyinka oo Djibouti ama dawladda Djibouti saxiixday ansixisayna taas oo kamid ah dastuurka dalkayaga heshiiska ma uu fulin talisku waxa uu fulin waayna waa mid iska fudud weeyaan waxa uu ka baqaya in haday dhacdo doorasho xor oo xalaalihi oo talada laga qaado lagu wareejiyo dad kale oo kamid ah mucaaradka leano taliskani waa uu fashilay sidaad ogsoontiin Djibouti waa dad yar ba ku nool malyan waan ka yaray dadka ku nool boqolkiiba 80 ayaa saboolnimo ku nool boqolkiiba 40 in ka badan saboolnimada ta ugu daran ayay ku nool yihiin dhaqaalaha dalka waxa gacanta ku haya madaxweynaha iyo inta yar ee ku wareegsan ama caa'iladiisa ayaa gacanta ku haya nolol bulsho ma jirto nolol jaraa'id madax banaan ma jiro Djibouti waxa ka jira raadiyo quraatay television quraatay iyo jariirad quraatay oo Faransiis ku soo baxda looma ogola mucaaradku inuu sacabiro looma ogola bulshada reedku inay sacabiraan sandikooyinka ama ururada shaqaalaha looma ogola inay xuquuqdooda u halgamaan wax la ogol yahay iska yar kolka waxa weeye anagu halgankayga waan wadnaa talisku waxa uu isticmaalayaa awoodii dawladdu isticmaalayaa waa uu nacaburinayaa naxirayaa nadhibayaa naga ceedinayaa shaqooyinka iyo camaladayada kale laakiin taasi tuu naga joojinaysa halgankayga ma halkiiba ka soconaya waana ogsoonahay taariikhduna wayna baraysaa in halganku wax maalin qudhaatay ku dhamaado uu yahay waqti badan qaato inta dooniba ha qaadato anagu waan wadaynaa ilaa inta isbedelka suura galaya dalkayaga lana xaq baan u leenahay
وهجاج dad badan oo reer Djibouti oo siyaasadda reer Djibouti aad u falanqeeya ayaa waxay aaminsan yihiin inaan mucaarid adag aynaan ahayn oo dalka Djibouti aynaan marna hanan karin arrinta maxaad ku beeninaysaa waxaan u maleynayaa taasi waa dhaliil rakhiisa weeyaan mucaaradka Djibouti dee waa adag yahay imanka haddii aan fikrad ka siiyo xusbigaygan MRD 25 sano in ka badan ayuu halgamayaa waxa uu intaa u adkaysanayana de waxaan maleynayaa waa uu adag yahay adag bay muujinaysaa waqtiga dheer halgamayno mid baa runa oo ummadii baa la caburinayaa oo loo taag sheeganayaa laakiin taasina waxa iska dhamaan doona weeyaan ummaddu mucaaradku hadduu jilicsan yahay una tayo lahayn uu talisku ka cabsoonaynin dee doorasho xor oo xalaal ayuu samayn lahaayoo si dimuqraadiyad ayuu uga badin lahaa waa sheekaduna wayba iska dhammaan lahaydba haddii uu taliskii ka baxayo uu diidayo in doorasho xor oo xalaali dhacdo inuu fuliyo heshiiska mucaaradka la galay waxay ka dhigan tahay taliska jilicsan oo mucaaradku ma jilicsan ayay ka dhigan tahay midda kale haddii aan ku qasabnay taliskii inuu heshiis nala galo taasoo markii u horeysay taariikhda ka dhacdo Djibouti uu talisku mucaarad rayida heshiis siyaasadeed la galo awal mucaarad hubaysan uu heshiis la gali jiray taasina tay ay muujinaysaa baan u maleynayaa kolka mucaaradku waa adag yahay taageerada ummadda ayuu haystaa bas xaqula loo sheeganay waa xooguna ma shaqeynaya waqti dheer waa laga gudbi doonaa insha Allah wahagaag xisbiga MRD ee mucaaradka ma jirtaa wax khilaaf dhexdooda ka abuurmay ama cidin ka baxday oo siyaasiin dawladda ku biiray MRD ahaan may cid maxay ahayd wax khilaaf oo naga dhex jira ma jirto waa dad maxay ahayd inay isku duuban waa dad halganka waqti dheer ku soo jiray karin yeeshay weeyaan qaar kale oo mucaaradka kamid oo daladii mucaaradka ee USN la oran jiray ama midowga badbaadada qaranka la oran jiray in ku midowna 2013 qaar kamid aha hasaab kamid ahayd ayaa qaarkood xagga taliska u janjeersameen ay u xalaaleenayeen doorasho ku sheegay ama indhasarcaadkii shalay ka dhacay dalka ee golaha baarlamaanka taasoo u suuragelisay taliska inuu mar kale 65kii kursi isku fuuqsado toddoba ayuu kuwa mucaaradku sheega uu ogol yahaan u maleynaya wararka ay soo gaadhay inta kalena isaga iska leh halka mucaaradku samaystay isagoo wax mid un weey halka waa sida af ingiriiska lagu yiraahdo business as usual weeyaan wax kale oo jiro oo khilaaf oo ka jira ma jirto wahagaag waa sidee rajadina mucaaradnimo mar haddii Ismaaciil Cumar Geelle dawladda uu hogaaminayo ay awoodii isticmaalayso oo mucaaradkii la weeqayo waa sidee markaa rajadina maxay noqonaysaa rajadeedu waxa weeye waa rajo guuleed weeyaan talis kasta oo xoog isbidaba waxay taariikhduna baraysaa inuu aakhirka iska dumo ayayna baraysaa in rabitaanka ummaduna aakhirka guuleysto ayayna baraysaa talisye ka xoog waaweyn taliska Ismaaciil Cumar haddii military la sheegay haddii dhaqaale la sheegaba ayaa dumay kana waa iska dumaya laana rabitaanka ummadda cid ka hortagi kartaa ma jirto in yarbaad yaad warwareejin kartaa laakiin aakhirka waa laga guuleysanun iraadada shacab iraadada Allah hore loo yiri wahagaag doorasho dhawaan ka dhacday dalka Djibouti 16 February bishii ku guda jirno ka waran doorashadaasi waad qaadacday maxaa ku kalifeen qaadacday waniga hadir sheegay doorasho ma waa doorasho ku sheeg guddigii doorasho ee qaran ee madaxa banaana ee ku heshiinay maadaama la hirgelin waayay maadaama doorashadii talisku yahay kala ka yahay doorashadii maxay ahaydeen referee amaba garsoor ka yahay kolla kula dooranayo waxay ka dhigan tahay wax la iska samaystay oo si garanaya natiijada inta doorashadu dhicin baa natiijadii la si garanayaaba kolka ka qaybgalka iyagu waxa quru keeni lahaa waxa weey maadaama doorashadu sidaa tahay oo nidaamkii sidaa yahay waxa quru keeni lahaa hadii aan ka qayb gali lahayn inuu u xalaaleeyo xaraan taliskoon baahan lahayd inaan xaraan xalaalina waan iska diidnay kaligeena manina xisaab kale oo mucaarado nala qaadacayna way jiraan in dhawaaqi amaba baaqi aan ugu yeedhno ummadda reer Djibouti qaadacaduna aad ayaa looga soo jawaabay oo shalay cid soo baxday oo codaysay aad iyo aad bay u yarayeen malaha 10% baa lagu qiyaasi karaa warbaahinta wixii joogana way arkeen warbaahintii qaarkood waa lagu qabtay oo lagu caburiyay sida maxaydanay kooxdii ka socotay France 24 ama telefishinka caalamiga afka Faransiiska ku hadla dhowr saacadood bay booliisku hayeen laano wixii xaqaa'iqi bay ka run sheegeen wixii arkayeen bay sheegeen dadku inay soo bixinay codayn bay sheegeen dhalinyartii reer Djibouti u waramaysay mucaaradka amba bulshada reedka kamid ahayd iyaga qudadooda waa la ciirsado waa qaar baa laga qabtay qaar inkastoo markii dambe la soo daayay sidaa bay wax yihiin waa talis macaangaga taageero ummadeed aan haysan doorasho xor oo xalaal aan ogolayn waxba aan ogolayn oo meesha u fadhiyoon in dana gaar ah u fushado wahagaag
haddii aynu sida aad hadalka u dhigayso ay tahay oo caburin lagu hayo shacabkii oo saxaafadii caburin lagu hayo oo aan la ogolan doorasho xor xalaal inay wadanka ka dhacdo mucaaradkiina aad u tahay hormood international community-ga ma la xidhiidheen arrintan ma u soo bandhigteen in dalka Djibouti ay ka jirto kaligii taliya uu hogaaminayo dadka caburinaya طبعا باشا عالمka siiba dalalka danaha waaweyn kule Djibouti waxa ka furan saldhigyo military oo badan baa ka furan dalka Mareykanku saldhig buu ku leeyahay Faransiisku mid kale ku leeyahay Japan Italy iyo qaar kale طبعا dalalka kuwa dimuqraadiyadda ee daneeya dimuqraadiyadda iyo xorriyadda daneeya xorriyadda ummadda waan la xiriirsanahay arrinta way og yihiin way ka warhayaan waxa aan ka leenahayna waxa weeye danihiinu kuma jiraan taliske ummadda reer Djibouti ayay ku jiraan stability-ga doonaysin danihiinu ay fulaan waxa suuro galin karo quraanba joogteen karo quraanba ummadda reer Djibouti ee talis maaha talisku maanta waa jooga bari waa tagaya ummaddu sawaati joogto weeyaan marka waxaan leenahay ummadda isgarab taaga oo rabitaanka ummadda garab gala haddaan ku weydiiyo ganacsadayaal badan ayaa Djibouti runtii cunaqabatay dhinaca ganacsiga lahayo waxa ugu dambeeyay Axmed Geele Arab oo wadanka laga saaray runtii mana soo gali kartay ganacsigiisina la wareegay arrintaasi sidee kula muuqataa adiga waxay taasi muujinaysaa wixii hadda aan kula habay muujinaysaa talisku waxa uu yahay muujinaysaa in cidba baxaynin ku garab jooga ku maxay raga aad sheegayso sida Cabdiraxmaan Boore amba Axmed Geele Arab waxay ahaayeen rag ganacsadayaasha ahaa ee Ismaaciil Cumar ka garab dhadhawaa ayay ahaayeen iyagii baa bixi waayay kolka cid kale oo baxaysa ma jirto wala ganacsadaan bixi karin Djibouti wala siyaasi ma bixi karin wala cid kale ayaan bixi karin Djibouti waxa weeyaan waa taliska Djibouti ka jiraay waxa weeye waa madax geel hadii aan maama Soomaaliya soo qaado madax geel nin qaadiba waa dhigi waxay ka dhigan tahay waxba la moodaa laakiin cid kastoo arag kolkay cid kastaba qaadabayna waxba ahayn bay tiro walays kun bay iska dhigtaa kolka taliskaasi imaka wuxuu ku soo haray qoyskii ayaba shaqada ku soo biyashabatay afar askari oo ilaalinaysa iyo qoyskii bay ku soo biyashabatay inakii madaxweynaha inakii taqabay inakii ku qabay marwadi madaxweynaha iyo qaraabadii garab dhaweyd inta bay ku soo hadhayba waxa bartilmaameed aan iga dhigaya xagga dhaqaalaha aniga u yar leexanaya warshad ayaa dhawaan laga furay Djibouti samaysa caanaha iyo wixii sharaaba waxa la wixii caano ama sharaab dibadda laga keenayna waxa la dul dhigay cashuur qayr caadiya si loogu xirxiro inaka madaxweynaha oo warshada loo furay loogu xirxiro suuqa caanaha iyo sharaabka waa sababaha weeye Axmed Geele Arab meesha looga saaray ayay kamid tahay oo arinta ayaan u maleynaya ayuu kaalintii la doonayay ka ciyaari waayay sababo kalena way jiraan kullayba xaqii baastadii waxa loo xiray inaan kale oo madaxweynuhu leeyahay ayaa loo xiray intii madaxweynaha iyo odaygayga waxa loo xiray xaqii hawada ayaa loo xiray wasaaradda ugu yaraan laba wasiir baa ku jiro madaxweynuhu sodog u yahay maxay difaaca iyo ka kale ee caafimaadka kolka sidaa bay sheekadu u tahay maxay ahayd inay sheeko qoys u noqotay meed maxaa u dambeeyaa la yidhi kaale sii sido heshiis uu la galay talisku Dubai World oo porka Djibouti ama dekada Djibouti maamulkiisa ku saabsanaa heshiiskaas oo muddo badan soo socday ayaa uu maalin dhaweyd meesha ka saaray oo nimankii DPI World cidii ay maamulka u dhiibteen porka Djibouti military ka soo saaray iyadoo lagu saleynayo qaraar maxkamadda Djibouti ay qaadatay taayo ana waafaqsanayn heshiiska laana heshiiska markii la gaadhayay waxa uu talisku ogolaaday in hadii wax khilaafi ka yimaado maxkamadda arrimaha u saabsan ee London ku taala inay arinta ay maxay ahayd inay wax ka qabato ma la horgeeyo ayaa heshiiska ku jiray waxaad arkaysaa inayna siyaasad jirin aragti jirin suuxo wixii lagu soo kaco lagu dhaqaaqayo waxba la taxgelinayn sharci caalami ee sharci kalaba in kii maanta la heshiis yahay haday tahay dawladii haday cid kala tahayba Britole aan heshiis la lahayn waxaasina waa astaamaha talis cid u dhacday weey Daahir Axmed Faarax mucaarid ba muddo soo hayd sida imika aad tilmaamayso runtii wadan qoys uu ka tarinayo ayaa tilmaantay markasta doorasho dhacdana Ismaaciil Cumar Geele iyo xukuumaddiisu aqlabiyada doorashada way helaan shacabka reer Djibouti waxa adiga ku muuqda maxay ugu muuqan weyday shacab ma helaan doorashooyin ma helaan way ku shubtaan saxarada la buuxsada oo saxaradu way iska sii buuxaan waana lagu dhawaaqaa shacbiga reer Djibouti way u muuqataa way arkeen boqolkiiba 90 ayaa oran kara shacbiga reer Djibouti maanta wax ka qarsooni ma jiro way ka qanceen taliskan way ka daaleen midda qurahaatee hadda waxa weeye in ka qancista nacaybaha taliska sidii loogu bedeli lahaa ficil taliska ka saara meesha
inta ayaa hadhay intaasina way socotaa annaguna waanu dadaalaynaa insha allah waana ku guulaysan doonaa wahagaag rajo intee leeg ayaad qabtaa inaad helaysaan Ismaaciil Cumar Geele kursiga aad ka qaadi doontaan balse wadadeed u mari doontaan dagaalkayagu ama dadaalkayagu waa mid nabdoon weeyaan anagu hub ma qaadanayno dalku inuu naga burburo ma doonayno waxaan doonaynaa si nabdoon oo inay ummadda reer Jabuuti iyadoo abaabulan iskaga caabiso ama iskaga riixdo taliskani mucangaga ah de kolba sida hawsha anu galana way ku xiran tahay haddii ummadda reer Jabuuti ay hawsha si baaxad weyn ay u galaan sida aan ugu baaqayno laan anaga baaq baan de wadnaa oo ummadii anagu gacanta kuma samaynayna inaan bislayno oon abaabullo oon u baaqno oonan ka daalin ayaa anaga meesha noo taala taa anagu waan wadaynaa anaga iyo xisaabta wixii kale ee aan isku aragtinahayba aakhirkana de waxaan aaminsanahay ama ku rajo weynahay inay ummaddu maadaamay dhibaatootay wax u hadhay ayna jirin inay baaqa ka soo jawaabayso si baaxad weyn uga soo jawaabayso laana baaxad unbaa lagaga bixi karaa arrintan xaaladan cakiran ee marka waxaad uga jeedaa in la mudaharaado oo kacdoon la sameeyo si nabdoon dadku inay soo dhaadhacaan ay yidhaahiin waan niga daalle iska eega meesha ummadii markay soo dhaadhacdo walaa caskari yarba hor joogsan karaan walaa cid kale hor joogsanayn inay walaalow waan kaa daalay ay tirahdana dhaaf weeyaan oo bannaanka ay ummadda usoo dhaadhacdo dariiq kali ma jiro aqal hoostii waxba laguma bedeli karayo qori la qaatana xal ma aha oo dalkoo burbura dalkoo burburu horseedi karaa dariiqa qurhaateen leenahay weeyaan ee aan isleenahay midhuu dhalin karaana mila haddii sidiisii loo isticmaalo inay ummadda badada usoo dhaadhacdo iyadoo nabdoon ay tirahdo walaal waa niga daalay iska eega meesha wagaag daahir axmed faarax gabagabadii iyo gunaanadkeenii dad shacbi fara badan oo reer Jabuutiya ayaa haatan shabakada caalamiga Harwanaag News daafaha dacalada dunida toos kaaga daawanaya shacabkaasi maxaad u soo jeedi lahayd shacabka reer Jabuuti waxaan ka leenahay meel kasta uu joogo walaalahaya waxaan leenahay waa aniga na maqlaya cid inoo maqan oo kali ma jirto innaga ayaa isku dawo ah innaga ayaa maxaydana isbadbaadini karayna taliskani macangaga ah ee dhibaatadiisu nagu hafsatay dhinac iskaga dhigi karna kolkaa waxaan leenahay guntiga geejista ayn gacanta iswala qabsada nin kastooba kaalintii aad wax ka qaban karayso gal insha allah ilaahay nuuna garab gali waanan guulaysanaynaa hawada adduunyada ka socotay isbedelka ayaanu ka hadhin 40 sano in ka badan ayaan xaaladda aan ku jirnaa ku noolahay dee waxa weeye run ahaantii dhan haddii laga eega innagaa isdhignaan odhan karaa halkaa li'anno haddaan hawsha dedejinno oon sideeda u gallo oon waayo horeba aan si baaxad weyn aan isku abaabullo waa horu talisku meesha ka bixi lahaa talis adag oo meeshaa na hor jiraayo ma jiro talis adag oo na hor joogaayo ma jiro hawsheenna ayaan weli kaalintii ay midho ku dhalin lahayd midho taliska meesha ka saar ayaanan weli gaadhin waxaan leenahay hadal yar hawl badan iyo midnimo reer Jabuuti ilaahayna una garab gali waanan guulaysan doonaa wahagaag aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee waqtigaaga noo siisay daahir axmed faarax daawadayaasha qiimaha qadarinta mudan ee soo toosga hawada nooga daawanayo waa shabakada caalamiga Harwanaag News wareysigana waxa qaaday anigoo ah Maxamed Axmed Xige dhinaca haweynta Harwanaag News oo isku dhameystiran dhamaantood wada dhameystiran waxaan igaga tageynaa daawasho wacan oo wanaagsan iyo kulanti dambe wacan Axmedna aad baan kaaga mahad celinayaa